بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخيارتا سوماليات دوينا سوماليات ميلو بولشوغان والسلام يا waxaan halkaan micnaha aan ka hadli rabaa maanta xiisadaha ka taagan dalka Soomaaliya dawladeeni ay haysato doorashadii oo dib u dhac uu ku imaaday leeyahay inqilaab iyo micnaha dhibaato waxaan halkaas rabaa maanta micnaha inaan wax yar ka taabto Soomaali haddaan nahay dib hadda nooma dhinna inaan mar labaad dib iyo rafaad iyo qax kale inta agal soo dib waxaan soo arki karnaa soo aragnay rafaad waxaan soo arki karnaa soo aragnay maanta waxaa fiican in micnaha Ilaahay micnaha nooga dhigo dawlad wanaagsan horumar aan gaarno carruurteeni dalka ku soo ceshano waxbarashadeeni oo dadka carruurta noo xil lahaayeen ka helno horumar weyn aan gaarno qof walba oo Soomaali ah oo muwaadin ah wuxuu haysto oo hanti ah oo dalkiisa inuu keeno oo maalgelin ku sameeyo hamiga aan lahayn waa taas maanta micnaha hamigeena ma ahan in isqabqabsi iyo hadda iyo kadib iyo muran iyo dagaal kale oo noo bilowdo wax noo fiican ma ahan maanta marka waxaan rajaynaynaa rajadeena taas ay ahayd laakiin hadda waxa xoogaa inqilaafka taagan yahay doorashadii marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed inaan wada duceysaan Ilaahay inuu meel fudud oo fiican Ilaahay noogu dhameeyo muran ka dhicin oo dagaal ka dhicin eeri ka dhicin madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Farmaajo waxaan dhihi lahaa dadka inaad u qabato doorasho degdeg ah oo xalaal ah hadda adiga codka ku hesho nasiibka hadii laga guuleysto sidii aan shalay ku dooranay baan ku jecelnahay hadii laga guuleystona waan ku jecelnahay u Soomaaliyeed baa tahay marka doorashada inaad qabato dadku waxay raali ka yihiin aad sameeyso ba dadku jecel yihiin annaguna aan jecelnahay inaad sameeyso madaxweyne hadii wax walba oo la kulanto oo micnaha caqabado kuga ah noocyadaas oo kale inta alxaq isku day in aad micnaha sameeyso tanazul wax walba tanazul leedahay tanazul ka sameey doorashada inaad ku dhaqsato oo dedejiso yaa fiican marka sameey taas dadweynuhu ay ku qanacsan yihiin doorasho iyo hala galo dalka sidoo micnaha nabad doorashada say dalku oo ku noqdo nabad iyo amaan lagu helo marka dadweynaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ilaahay Rabbi Raxmaano isa dhibaato iyo muran kale inta hadda kale inta Ilaahay uu soo noo celinin tii aan soo marnay waan ognahay Ilaahay taasaan ka baryayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay idinkuna iska daaya waxyaabaha qaarkood tanazul sameeyo dadweynaha u sameeya inaad isku tanazulaan oo wax fiican aad u fiican waxay dan ugu jirtaa idinka anaga dadka masaakiinta dacafada oo wadanka ku nool marka waxaan dhiilaay aqligiina laga shaqeysiyo marka insha Allah biidnillaahi kariim idinkana inaan waanadaas aniga aan igu talagalay iyo dadnimadii ugu jirto marka inaad wax ka garan doontaan rajaynaya insha Allah biidnillaahi kariim inay mid qeyr Ilaahay nooga dhigo doorasho xur ah in Ilaahay in si degdeg ah loo qabto codsigaasna waxaan u dirayaa madaxweynaha Farmaajo si dhaqso leh insha Allah biidnillaahi kariim salaamu calaykum Soomaali meel kasta ay joogto waxaan leeyahay magacaygu waa Shiine Cabdi YouTube-kayga channel-ka waa kaasa subscribe like share iyo dhaha wax walba walaalayaal bariyahan macnaha socodkiina waa weeri yahay baashe taabta insha Allah subscribe kan igu saacideeyo insha Allah biidnillaahi kariim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh